ninka maanta la dhex maraya halkiisa kow anigu haddaan helayo oon maxay hayde helaya kaasoo kale kowban kaga siina fanaanada caanka ah ee Zahra Halgan sidoo kalena ah mujaahidad door muhiim ah ka soo qaadatay xorriyadii iyo madax banaanidii Somaliland oo maanta waraysi gaar ah telefishinka Ariel ku siinisay hoteelkeeda Hidadhowr ee magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadashay dadyoga calanka Soomaaliya ku dhexdha deegaanada Somaliland waxaana xukuumadda Somaliland iyo shacabka u soo jeedisay in arintaasi go'aan adag laga qaato qofka maanta Somaliland jooga ee calanka xidha waa qof u jeeda dambi waa qof nacayb u jeeda waa qof inuu wax isku diro u jeeda waa qof doonaya inuu naftiisa ku haligo meesha laakiin oo de magac doonaya dadku waxay nagu batay dadkii magac doonayay ummadan calankan yar maradan yar u xidhay xanuunka iyo dibka iyo dhibaatada ay soo marisay ummadan oo degan oo meesha ku badqabtay ay ku rogtay ka soo xidhay dreyskana anigu waxa loo lahaa wali dadka waxa ku jira wanaag ba ku jira inaan laba soo gaarin inaan askartu soo gaarin in halkiis awal waxa la islahaa يعني أمضوا الشرع إذا قعدت بقارن لكن ما كان نقطه إن يرو به يهودي يدك كيسي ولا نكون مدين على كهو من سنة أو هدي ماشى اللي وتوك تقف ومضح اللي وتوك أمد دح اللي وتوك إن أنا نخاف ما إن عدنا الله أصلا كريم من كمان أنت الصومال اللي أنت سويت على كهو وإن ضد كاسي أي كعجان إن يحدا ويوحد شوجا dad aabahood ku dhintay oo walaalkood ku dhintay oo calanka hoostiisa oo ehel iyo asxaab iyo cid walba ku waayay kaas haduu inta soo qaato madaxa ka toogto magmale qofkaasi hana ogaadaan kuwa soo xiranaya maalinka maanta laga bilaabo marka soo xirato u diyaar garow in kow lagaaga siinayo oo ay joogaan kuwii aabiyo hooyaba ku waayay dad badan ba xamar ka yimaada fanaaniin badan ba xamar ka yimaada ummad badan ba degan oo koonfur ka timid shicib oo on siyaasi ahayn oo siyaasada ku dhex jirin laakiin ninka Hargeysa iyo Gabiley iyo Berbera iyo Boorama iyo Somaliland oo dhanba ku xiranaya calanka Soomaaliya oo nin xunaan jeeda waana la iska celinaya geesta kale Zahra Halgan waxay si gaar ah u la hadashay bahda fanka oo ay kamid tahay waxaana talooyin u soo jeedisay fanaaniinta ka soo heesa magaalada Muqdisho ee ka soo jeeda Somaliland fanaaniin badan oo iyaga kamid ah inoo timaado inoo heesta fanaaniinteenu markay halka tagaan dibka jira waxa weeyaan waabay ooyayaanba hadda baroora waxa weeyaan anagu dalkan waanu tabcaynaa waxaan ugu tabcaynaa fan laakiin marka fankaagii laga dhigo mid hunguri lagu doonto qof mid waliba xamar buu tagayaayo u barooranayaayo waxaad muddaa inay ka siman yihiin koonfuri maxay hay'ad muxaafid iyo macaarib nacaybka Soomaaliland nacaybka ummadan inay ka siman yihiin haddaanay ka sinayn nin ummad dhan oo wax ka tabanaysa caayaya mid soo dhaweyn lahay ku calan xidhay oo maalinna meel ku dhashay maalintii kale Hargeysa ku dhashay ayuu soo sawiraya madaxweyne dhan soo sawiraya fanaanada caanka ah ee Zahra Halgan hadalkeeda way sii wadatay waxay sidoo kale ka hadashay qodobkii isdhexgalka ee lagu soo ansixiyay shirkii wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay Djibouti waxaana xustay in madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aan dalka looga baqayn madaxweyne Muuse Biixi looga baqi maayo Somaliland adnana looga baqi maayo looga waroori maayo Somaliland inta kale wasiirada la socotay madaxda la socotayna Siciid Sulba waa ki hadlayay yidoo ku kala kacmay maanta nin Somaliland looga baqaya gudida kuma jirin ee dadkeenan ma aragtay ee laab la kaca ma fahantay imika waa muddo isla socota laakiin ragaan ajandaba la iman waxba la iman waxba ku soo talagelin oo markay meeshii yimaadeen yiri war dadkan maxay nacib yihiin soo isla galka maaha حاجة سياسة إنتاسون أينو دقنو شو شركة لو كلا كعو ورثوا إنتاسون هل فهم Zahra Halgan intii aan waraysigan ku guda jirtay waxay ka hadashay xiriirka cusub ee u bilowmay wadamada Somaliland iyo Taiwan oo labaduba wadamaha la aqoonsan Taiwan waxaan tagay 3 sano ka hor waxaan geeyay documentary Somaliland ka hadlay 48 minute dabadeedna documentarygaasi wuxuu ku turjunaa Faransiis iyo maxay haydayaan iyo China ayuu ku turjunaa marka waxaan aad ugu faraxsanahay
maalintii documentary-ga daawadeen dadkii daawanayay waxay dhibka annagana haysta Soomaaliland hadaan nahay Taiwan nahay ayaa idinkana idin haysta waa 3 sano ka hor marka haddii maanta lagu guuleystay waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay waa dad wanaagsan dad wax horumar samaystay weeyaan dad wax bartay weeyaan waxa weeyaan inaynu boqcada yareen la aqoonsanayn ku dayano inuu iska dayno reehban Liban Cusman Ali Television Karial Hargeysa